waxaa la yiri hargeysa anoo jooga oday iiga sheekay wuxuu yiri sheekh hadalkaaga aan ku keenay raggii hore dhaqankii ay haysteen oo gabdha nacaybka ahaa maantana wuu jiraa maxaad aragtay baa wuxuu yiri nin baa gabar loo dhalay tu labaad baa loo dhalay tu saddexaad baa loo dhalay wuxuu goostayba saddex gabdhood markuu helay inuu gabadhii furo wuu isceliyay tu afraad baa loo dhalay wuxuu siri tan gabdhaheeda iska haysatee maabad boorsada ka qaadatid oo adiga aad iska baxdid tu shanaad baa loo dhalay odagii waa yaabay gurigu ka baxay wuu isaga tagay ha isaga tagee haddana tu lixaad baa maalintii dambe uur ay qaaday ma rabo reerka inuu yimaado markaasaa gabadhii gabar bay dhashay haddana imise lix markay dhashay baa odayaal saaxiibadiya waxaa la yidhi warniyo haddee khayr dee gabadhii gabar bay dhashay yaa ma ka warqabtaa shib buu yidhi go-aan wuxuu gaaray caawa reerka inuu tago dharkiisii xidhxidho caawa uu seexdo berrina inuu ka qalab qaato dib dambe gabadhaa iyo gabdhaheeda inuusan u arkin nacayb meeluu ka gaaray waa jaahil gurigiiyuu yimid gabdhihii waa kusoo aroordeen aabbaa yimid laakiin asaga maba arkayaba habeenkiibuu seexday ilaahay amarkii fiiri ilaahay meeluu wax ka wado odaygii mar allaala reerkii markuu gamcay dee hooyada seexan mayso gabadhii bay la soo jeedaa soo maha hooyo allah u naxariisto runtii waa reerka ka seexan mayso iyada hadday indhaha ka seexatana qalbiga ka seexan mayso ma qalbiga ka seexataan wallahi qalbigiinu wuu soo jeedaa wallahi ilaahay qalbiga ha idin dhowro eeg odaygii taagan aabbahay gelmaysaan halkan ku kala waraadiya tii saddexaad tii afraad tii shanaad tii lixaad baa la geeyey tii lixaad markii la furay mise muluqdii yarayd ee hadda dhalanayd radiica ahayd la nuujinayay ayaa jiifta ilinkii oo dhahaysa aabbahay inta ka gelin maysaan waxaa la yidhi ilaahu maxaan samaynaa waxaa la yidhi albaabka toddobaad ka geliya toddobaad ha la geeyo toddobaad baa la geeyey waa la furay yaa u fadhiya yaa u taagan qofna inta la qabtay ayaa madax loogu tuuraya isagoo sii shalwanaya hogayay baayaya xaarka ka daadanaya ayaa uu soo kacay muxuu dhahayaa marka iyadaa ilaahow gabar toddobaad ilaahow gabar toddobaad ilaahow mid toddobaadaysi wuu cabaadayaa xagguu joogaa sariirtii wuu saaran yahay lugihii gacmihii wuu dhididsan yahay wuu neeftuurayaa gabar toddobaad reerkii baa ku soo kacay gabdhihii waa la naxay dee ninka ilaa goormuu qaylinaya mataqaanaan ilaa cadaabkii koowaad ilaa iyo kii toddobaad reerka gabadha intaas way maqlaysaa qaylida isagoo qaylinayo waxay leedahay waxaa mariyada ma qalbigaaga mise odagii baa qaylinaya maxaa ku dhacay hadda markuu si toosa u qayliyey albaabkii ilmihii o dhanaa soo wada kacay markaasuu soo fariistay isagoo dhididaya waxa ugu horeeya waa maxay markuu istataabtay oo uu arkay cadaab inaanu ku jirin oo wuxuu riyo ay ahayd laakiin waxna uu soo arkay ilaahay baa ku dhaariyay waxa ugu horeeya gabdhihiina hareerihiisay fadhiyaan aabbo ilayhin waxa ugu horeeya uu sameynaya ninkaas waa maxay muxuu sameynayaa markaasuu gabdhihii xaaska xataa uu ilaaway gabdhihii oo uu intaasoo sana uusan dhunkasho iska dhaafe il naxariis uusan ku fiirinin ayuu soo ururinayaa islaantu way yaaban tahay ruuxan odagaagii miyaanu ahayn maanta ilmahaagii dhunkanaaya gabdhahaagii dhunkanaaya reerkii noloshia kusoo laabatay soo ma aragtid wadajirka siduu u fiican yahay markaasuu arrintii ka sheekaynayaa ninka waxaa lagu leeyahay weligii gurigiisii kama aanu tegin gabdhahana wallaahi indhahay u saaraayeen madaxay u saaraayeen gabdhaha waa nolol weeyaan laakiin maxaad ku dadaalaysaan waxaad ku dadaashaan gabdhaha wax anfacaya bara
gabdhaha maadiga ha u badinina xadiiskan eega rasuulku leeyahay salaatu wasalaam calayh qofka qalbigiisa aakhiro ku weyn yaraantiisa ilaa weynidiisa qofka qalbigiisa aakhiro ku weyn wuxuu baranayaa aakhiro u baranaya ilaahay dartii u baranaya cilmigu baranaya aakhiro inuu anfaco u baranaya hadalku dhahayo aakhiro maxaa la ilaahay inuu ku raali gelinaya talaabadu qaaday ilaahay ku raali gelinaya wuxuu arkayo wuxuu maqlayo ilaahay ku raali gelinaya aakhiro qalbigiisa ku weyn adduun aanan fiirinaynin qofka aakhiro qalbigiisa ku weyn eeg ilaahay qalbigu u hodmiyaa